أفر محايسن أفر لانغانا قاجلين هاي بي موايسنيني لكن أفر كو إهراب سهور طب محايسن waa hooyo muumino aadan cali oo ah 80 sano jir lugaha naafa ka ah waxay ku nooshahay kaamka ijaabo ee ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir guriga ay ku nooshahay waa mid ka samaysan cooshado oo aanan iska celi karin roobka iyo dabaysha saa'idka ah waxaan kula kulmay banaanka hore ee gurigeeda xilligii aan la kulmayay waxay ku fadhiday kursiga loogu talagalay dadka lugaha naafada ka ah kursiga ay ku fadhiday waxa uu ahaa mid qayb kamida burbursan oo aan lagu kaxin karin marka ay dibadda rabto in loo kaxeeyo ama in lagu socodsiiyo hooyo muumino aadan cali ma haysato waxay ku afurto iska badaayay inay hesho casho iyo saxuur waxay abaar darteed ugu soo barakacday gobolka Shabeellaha Hoose waqtigii aan la kulmaayay waxay ahayd xilli duhur ah waxay ii sheegtay inaysan meel ku ogeyn wixii ay ku afuri lahayd habeenkaas waxay sidoo kale sheegtay inay heli karto oo kaliya biyo ay cabto oo ay ii sheegtay in laga yaabo maalinta xigta oo dhan in biyahaasi ay ku soonto hooyo muumino aadan cali ayaa ka cudur daaratay in waqti badan ay ila hadasho maadaama sida ay sheegtay ay dareemayso xanuun dhan kasta ah balse si kooban ayay ila hadashay قاجلين هاي بي وابك درجنا لكن قاجين هاي أفر محايسن أفر لانغانا بي موايسنيني لكن أفر إهرابسي ولا غسا يقام سهور إهرابس ها تيرن هاي أفر كو إهراب سهور طب محايسن hooyo muumino baahida haysa ka sokow waxa haysta dhib kale oo ah kursigii ay isticmaalaysay ayaa ka ciladoobay oo qayb kamida ka burburay oo halaawi kursigii boosto dareerasi yahay oo halaawi wala email ni jeeyamala dhibaatadaas qam ugu dambeyn hooyo muumino aadan cali ayaa ummadda muslimiinta ah waxay ka dalbatay inay ku soo caawiyaan wax walba oo ay awoodaan si gaar ah waxay u dalbatay raashin ay ku soonto inta ka dhiman bisha Ramadaan iyo sidoo kale in lagu caawiyo kursiga dadka lugaha naafada ka ah guri fadaan afur sahur iirabs gaari fade gaar aan ku socdo gaar aan ku socdo kan amal gaar iyo fadaan xaaladaha dunida iyo duruufuhu waa kuwa aad u kala duwan dadna baahi iyo diihaal ayaa daashaday oo waa kuwa dalanbaabi dhacaya kuwana daaraha ay ku jiraan ayaa cunto diihan ay ka soo daadiyaan oo dharag ay la daacoodaan laakiin cidna daalac loo raacan maayo oo alle ayaa deeqda bixiya ciduu doonana siiya ciduu doonana u diida dabcan waa iska xal adduun maanta haddii aad awoodid inaad qof walaalkaa samato bixisid waxaan kaa codsanaynaa ha sugin berri caawa samay fadlan ha hakranin wixii aad awooddo haddii wax yar oo soomaalinimo ah ay nagu hartay maanta ayay dadka Soomaaliyeed isu baahan yihiin وبشي إسلامك تتبع تشوفتي صوماليتا عودك أهلك غرابة هاربا تالي عانو لهايني وقرمدا تتكينو أفقود السيا الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر وبشي